subax wanaagsan saaxiibayaal saaka waxa aan joogaa mid kamid ah goobihii ugu quruxda badnaa aan arko waa muraayad ku taala waxa weeyaan dhulka halkan waxa weeyaan meeshii laga guri jiray midixda sidoo kale waxa weeyaan meel ay kumanaan qof komentiyada igu soo qorayeen in hal mar uun tago hal mar waxa weeyaan soo duub meeshii uu tareenku mari jiray hal mar waxa weeyaan soo duub meeshii midixda laga dhoofin jiray godadka midixda xakan bay yihiin oo maan tagin laakiin halkan waxa weeyaan midixda oo la soo qaaday ayaa la geyn jiray kadibna waxa weeyaan ilaa markabka oo badweynta dhex yaala ayuu geyn jireen tareenkuna si qurux badan ayuu halka u dulmari jiray hadda laakiin aad iyo aad buu u burburay halka xataa waan gaari weynaa saaka biyo hoos u buuxsamay darteed oo wadadana way xiran tahay in dhinacaasha laga soo wareegay mooyaane goobtan hadda waxyaabahan markii hore dhan kaga yaabay waxa weeyaan markii hore oo dhan goobtan bad caadi aan u haystay ilaa aan isweydiiyay maxay mawjado u yeelan weeday mawjadihii waaweynaa meeday laakiin mar dambe ayaan ogaaday in khoori tahay khooriguna una lahay wax mawjada laakiin kulliba biyaha nool waxa weeyaan way isira dhaqdhaqaajinayaan in yar oo waxa ka dareemaysaa inayna de ballay ahayn oo kale haddaba meeshan waxyaabaha cajiibka ku tahay waxa kamid ah wadadaas oo sida u socoto waxa weeyaan badweynta dhex gasha halkaas ay soconaysaa badweynta ay dhex galaysaa sidoo kale meeshan waa waxa weeyaan badaha kale amba xeebaha kale way ka yara duwan tahay waa xeeb yara cagaaran xeebteedu way yara cagaaran tahay dhirtan baa ka baxda dhirtan oo nooceeda garanay baa ka baxa wax urama laha laakiin dadka badana reer xeebeedka waxa yaqaanaan qajool laakiin anu carmo oo kale bay ila egtahay sida carmada oo kale la socdo muuqaalo qurux badan oo halkan idin ka soo wado